Qisa cajiib ah oo qalbigaaga taaban doonta. Gabar ayaa habeen waxay ku soo daahday guri ay degneyd gabar kale oo ay saaxiib yihiin, halkaas oo ay wax ku wada baran jireen. Markii ay waxbarashadoodii ay soo dhammaysteen, kadib ayaa gabadhii soo baxday. Inta ay waddada maraysay ayay cabsi dareentay, maadaama ay waddadu cidlo ahayd, waxayna tala saaratay Allah. Wax yar kadib, waxay aragtay nin geed horteeda ah ugu gambanaya. Way naxday, waxay Allah ka barisay in uu badbaadiyo. Quraankana afkeeda ayay ku qabatay si uu Ilaah u badbaadiyo cadowga horteeda ah taagan. Ayadoo quraanka afkeeda ku haysata ayay si tartiib ah ninkii u agmartay gurigeedii, ayayna si nabada ku tagtay. Subaxii ayay waxay maqashay in waddadii ay soo martay geedkii ninkii ku jira agtiisa lagu dilay gabar. Xilliga uu dilku dhacayay waa qadar 10 daqiiqo kadib. Markii ay meesha martay, waxay dareentay in ninka dilka geystay uu yahay kii ay soo agmaraysay. Si ay booliiska ugu sheegto, ninkii tilmaamtiisa ayay aaday saldhigga. Kadib taliyihii saldhigga joogay ayaa u sheegay inay hayaan dhowr nin oo habeenkaas la soo qabtay, loogana shakisan yahay dilka gabadha inay geysteen. Sidaa daraaddeed wuxuu gabadhii ka dalbaday inay raggaas wejiyadooda eegto oo ay sheegto haddii uu ku jiro ninka ay habeenkaa aragtay. Gabadhii ayaa si geesinimo leh u soo hor istaagtay raggii eedeysanayaasha ahaa, waxayna ka aqoonsatay ninkii, wayna sheegtay. Ninkii ayaa isna dembigii qirtay. Gabadhii ayaa taliyihii ka codsatay in ninka loo weydiiyo sababta uu iyada u weerari waayay. Markii la weydiiyey, ninkii ayaa ku jawaabay keligeed maysan ahayn, waxaa dhinacyada ka socday 2 nin oo dhaadheer oo xoog badan. Subxaanallah, malaha waa malaa'igta Rabbi, ileen qur'aanka ayay afkeeda ku haysay markay agmaraysay. Fadlan la wadaag asxaabtaada kale muuqaalkani si ay ugu noqoto mid ay kuwaana qaataan. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani.